xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay sheegtay in aanu ka dhacaynin imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8aad iyo 4aad meelo ka mid ah Somaliland. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Somaliland Mudane Cismaan Jaamac Aadan oo qayb ka mid ah warfidyeennada kula hadlay xafiiskiisa ku yaala magaalada Hargeysa ayaa sheegay in qaar ka mid ah iskuulada ku yaala deegaanka Baran ee gobolka Sanaag in aanu gabi ahaanba aanu ka qabsoomeynin imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8aad iyo 4aad. deegaanka Baran oo idilma ah laba iskuul weeyaan oo kali ah inta Puntland ka qaadata imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee Somaliland way ka tirsan yihiin mushaharka iyo macallimiinta waxa laga guneeyaa halkan ha yeeshee way laba afleeyaan halkaana way ka gurtaan imtixaankii markaa waanu ka joojinay waxaan maqlayay imika in ay doonayaan oo ay araaji soo qorteen codsi sameeyeen ay leeyihiin mar dambe u noqon mayno hana la siiyo imtixaanka sidaasaan maqlayay wali go'aan laga gaadhay ma sheegi karo laakiin laba iskuul oo kale weeyaan gobolka Baran gabigiisa wax iskuul ku jiro oo dhan kulli imtixaanka wada qaadanayaan waxaana ka wada tirsan yihiin Jamhuuriyadda Somaliland labada iskuul way ku godan tahay haddii aan wax isbedelin maalmahan oo aanay soo xiroonin oo aanay joojin awalba xirada way ku jiraan Somaliland waanu way leeyihiin laakiin Puntland way ka qaataan imtixaanada haddii aan arintaasi la xalilin waa laga joojinayaa. dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland ayaa beeniyay warar muddooyinkii u dambeeyay la isla dhexmarayay isla markaasna sheegayay in xukuumadda Somaliland ay cadaadis ku saartay in hay'adda GISDina ay joojiso mashruuc dawladda Jarmalku doonayso inay dib u dhis iyo qalabayn ay ugu samayso dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco. ma arintaasi ma jirto waa ku tirkuteen ka Hargeysana waa la dhisaya waa la hagaajinaya ka Burcana waa la dhisaya waa la hagaajinaya. Idruus Maxamed Ahmed Ariel TV Hargeysa.